jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika ayaa u sameeyay xaflad baroordiiq ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ku geeriyooday magaalada Dubai isbitaal ku yaalo ee xarunta waddanka isku tagga Imaaraadka Carabta. mas-uuliyiinta ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ee waddankani Koonfur Afrika ayaa isugu yimid munaasabad baroordiiq ah ka ay ugu baroordiiqayeen geeridii naxdinta lahayd ee ku timid madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, iyagoona shacabka Soomaaliyeed kaga tacsiyeeyay geeridii ku timid madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, iyagoona uga tacsiyeeyay eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ku geeriyooday dalka isku tagga Imaaraadka Carabta Abu Dhabi. hore Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaan taxsiirayaan halkaan uga daraynaa anagoo jaaliyadda South Africa ee ku nool magaalada Cape Town. madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweyne ummadda Soomaaliyeed ayuu ahay, tiisi ayaana ku timid. waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed Allah waa nin wax badan ka qabtay. waxaan leenahay Ilaahay tabaaraka wa tacaala ayadiisa ayuu ku sheegay kullu nafsin daa'iqatul mawt, naf walba maanta nool ayaa waxay dhimidaysaa geerida. waxaan tacsiyadeynaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed Bismillaahi Allah siiyo darayaa Soomaali weyn oo dhan, gaar ahaan Puntland meeshii uu ka soo jeeday. waxaan tacsi gaar ahaan u dirayaa xaasiisa oo la yidhaahdo Xaawo Ertiyaabe iyo caruurtiisa. Cabdullaahi Yuusuf waa dhuuntay muusan dhimanin, waaba taariikhiisi baa haraya wuxuu qaranka u qabtay. Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa ku geeriyooday magaalada Dubai ee xarunta waddanka isku tagga Imaaraadka Carabta, isagoo halkaasi ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala magaalada Dubai. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV.